xildhibaanada sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh iyo guddiga intaa kadib waxaan ka qayb qaadanayaa doodan maanta cutubka labaad marka koowaad runtii waxaan bogaadinayaa dastuurkeenna sida uu u qeexay meeshan xuquuqda aadanaha hordhaceeda qodobka 10aad si cad buu wuxuu ugu qeexay maqaasida shariicada islaamka runtii oo ku salaysan xuquuqda uu insaanku leeyahay bini aadamku leeyahay waxaa gundhig u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamo uu siiyey oo isagu hibo uu u siiyey ayay ka imanaysaa ma aha sida falsafada reer galbeedka ruuxa inuu sidiisa asaga xuquuqda u leeyahay arrintaas waa muhiim maqaasida shariicada islaamka markaad eegto oo ay yaqaanaan dadku wada yaqaanaan oo hadda mar dhaweyd guddoomiyaha uu noo tirinayay oo ah xifdu ddiini waalnafsi waalnasli waalmaal waalcaql shantaas waaweyn oo aadka loo sheego saddex ka mida waa bini aadamka laftiisa ilaahay wuxuu huwiyey bini aadamka laannu nafta bini aadamka iyo caqligiisa iyo tarankiisa saddexdaasba waa bini aadamkii keliya waxaa soo haray shaqadii uu qaban lahaa oo diintii oo khilaafadii cibaadadii cimaaradii ahayd iyo wixii uu kaalmaysan lahaa oo maalkii ah labadaasaa shan ku ah marka maqaasida shareecada saddex ka mida in bini aadamka laftiisa uu noqdo ximaayadiisii ilaalintiisii waxay astaan u tahay karaamada ilaahi subxaana wa tacaala bini aadamka uu huwiyey markaan u imaado qodobada qodobka 11aad qodob lagu soo celiyey baa jira faqradiisa koobaad iyo faqradiisa saddexaadba ereyga diin ayaa ku soo noqonaya waxyaabaha la isku faquuqi karo oo lab iyo dhadig iyo naafanimo iyo xaalad bulsho iyo aragti siyaasadeed iyo la xiriira waxaa lagu soo daray inay ka mid tahay diin marka taas waxay ka dhigan tahay in waddanka diimo kala duwan ay ka jiraan oo qaarkood qaarka kale qaarna la faquuqi karo qaarna ay sarreeyaan macnahaasna sax maaha kama jiro waddanka marka waxaa saxa in ereyga diina laga gooyo labadaa faqraba laakiin waxaa jiri kara aragti diimeed baa jiri karta oo lagu faquuqi karo dadka waayo aragtiyo kala duwan iyo madaaris iyo madaahib baa kala jira fikri ah marka kale aragti duwanaansho diinkii dhexdiisii ah waa lagu faquuqi karaa waa suufi iyo waa salafi iyo waa akhwaan iyo waa hebel iyo waa qolo hor iyo waa qolo dambe haddii qolada markaa xukunka haysata ay qolo kale faquuqaan waa wax dhici kara marka waxaan qabaa meesha in lagu soo daro meesha afkaar siyaasadeed ama mid diineed halkaas in la raaciyo oo afkaarta siyaasiga labada meelood way ku sheegan tahay in la raaciyo fikir diini ahna inaan lagu takoori karin laakiin diin asal ahaan la isku takoorayo meesha ma yaallo qodobka afraad faqrada afraad isla qodobkaas 11aad ee lagu soo kordhiyey oo ah ruuxna in maqaamkiisa iyo maamuuskiisa in uusan maaragtay oga baxsan karin in lagula xisaabtamo dembiga waan soo dhaweynaya aniga waa ila qurxan tahay haddii uun si xasaasiyad looga qabana dadka ka qaba wixii lagu xiri lahaa ha sheegeeno laakiin ruuxna dembi in lagu qaado maqaam kastoo uu lahaado inuusan ka weynayn waa arrin mabda' saxa wey qodobka 12aad faqradiisa koowaad qaybta soo jeedinta guddiga ay soo jeediyeen nooc yaro fasaaxa darraha ka muuqata oo ereyga kasta baa 3 jeer ku soo noqonaya wayna jirtay arrintaas oo cutubkii koowaadna meel waxaa jirtay hal faqro sidan oo kale oo ereyga kasta ay 4 jeer ku soo noqonaysay marka si fasaaxa leh ha loo siiqeeyo macnuhu dhib kale ma qabe faqrada saddexaad ee isla qodobka 12aad oo ka hadlaysa xuquuqda lagu aqoonsaday cutubkan sharci unbaa lagu xadidi karaa sida ku xusan qodobka 38aad haddayba halkaa ku xusan tahay waa meesheeda laakiin waa fiican tahay meesha mabaadiyada in lagu sheego oo in sharci ama xeer mooye si kale aan loo baabi'in karin marka faqradaas in la iska daayaan qabaa qodobka 14aad ee la gooyey waa ku raacsanahay sidaas macno badan hadda ma soo kordhinayo waa la iska gooyo oo meel kalaa lagu sheegay wixiisii qodobka 14aad ee cusub faqradiisa
afraad oo ka hadlaysa gudniinka gabdhaha senator samsamna way ka hadashay mar dhaweyd waxaa lagu xiray gudniinka fircooniga ah waxaad ogsoon tihiin gudniinka si ahaan shareecada islaamka shacaa'irtu ka mid yahay ama sunan alfitra waxa la yiraahdo ragga inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay labadaba madaahibta way qabaan dumarka laakiin gudniinkiisa taqriiban madhabka shaafici oo annaga aan haysanaa wuxuu qabaa inuu waajib yahay laakiin madaahibta kale oo islaamka intooda badan waxay qabaan ama wax iska bannaan inuu yahay ama sunno inuu yahay ama makruma wax la yiraahdo wax sharaf yani curfi caado fiican inay tahay dunida islaamka markaan saa u jaleecno caalam islaami dadka islaamka aan ka dheeganayna asalka waa jasiiratul arabi iyo carabta ah ama khaliij ha noqdeen ama waqooyiga afrika ha noqdeen caalam islaami wax isguda oo gabdho guda waxaa jira masar suudaan annaga mauritania iyo jabuuti intabana gudniin fircooni ay isticmaalaan dadka kale gabdho ma gudaan marka su'aal weyn oo si sax ah in loo dul istaago u baahan weeye marka la yiraahdo marka gudniinka fircooniga ha la diido cillad waxaa imanaysa annagu gudniinka lama naqaanaa horta dad yar ma ogi oo dadkan xeebaha saas oo kale inay yaqaanaan waa laga yaabaa laakiin annagu gudniinka fircooniga ma naqaanaa dadka hawshaa qabtana gudniin fircooni ma yaqaanaan marka gudniin fircooni ayaa la diiday marka la yiraahdo mid sunni ah la ogol yahay haye kii sunniga ah baan gudaynaa bay dhahayaan wayna shafayaan oo gudniin fircooni ah marka dhibkiina waa halkiisii buu joogaa arrintaa marka waxay u baahan tahay in xisaabta si fiican loogu daro oo haddii aan la xadidi karin halbeeg ama aaliyo ama xeerar xadidaya aysan jirin in la xaqiijin karo in dadka inta lasoo tababaro dad dibadda laga keeno la tababaro gudniinka sunni ah muxuu yahay oo markaa kadib hirgelintiisana ay dowladdu damaanad qaado haddaan la xaqiijin karin in sidiisa la isaga daayaa la qaataa oo gebi ahaanba la iska dhaafo oo dunida islaamka waxaan iyaga dhaafin annagana dhaafi maayaan la iska daayo qodobka 17aad ee la gooyey ayaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo dood dheerna dhaliyey oo ku saabsan xurriyadda diinta iyo caqiidada horta qodobkani waa qodob halbeeg u ah dasaatiirta dunida oo dhan oo lagu qiyaaso in intee la eg buu dastuurkaasi macno badan samaynayaa oo xurriyaadka iyo xuquuqda uu ilaaliyaa dasaatiirta dunida oo dhan taasi waa midda keentay marka dadkii noo samaynayay inay qodobkan soo qaataan markay soo qaateen maadaama uu halbeegga dasaatiirta uu yahay ayaa waxaa ka hor timid ishkaaliye ah oo haddii annagu diimo kala duwan ma lihine maxaa la tixgeliyaa oo xurriyada la ilaalinaya maxay tahay markaas waxay ku khasbanaadeen inay ku laraan faqro kale oo dhahaysa diin aan diinta islaamka ahayn lama faafin karo ma loo baahnaa marka aslan waa sax dunida halbeeg buu yahay laakiin annagu waxaan leenahay astaamo aan dunida kaga duwannahay oo dhan dalkeennu 100% waa islaam diin kale oo aqoonsanahay kama jirto dad tuugaa waa jiri karaan marka laga soo tago maxay ahayday taa laga soo tago macnaha anaga diin kale oo aqoonsanahay wadanka kama jirto saa darteed dhibka aan nama haysto xurriyatu diin ayaa loo baahan yahay caqiido nama haysato markaan muwaadiniinteena Soomaaliyeed ka hadlayno marka waan kaga duwannahay Sacuudi iyo Britania marka laga soo tago dad aan laga soo dheeganin dasaatiirta laakiin wadamada xataa caalamka islaami laga soo dheegto dasaatiirta iyo kuwa kaleba diimo kala duwan bay leeyihiin in la tixgeliyana waa ku khasbayin annaga baahida ma qabno marka dastuurkana waxaa la rabaa baahida bulshada Soomaaliyeed inuu ka tarjumo baahida dunida maaha baahideenu marka kama tarjumayo qodobkaas waxaa intaa dheer laba qolo oo dhib nagu haysa labadaba qodobkaas ayay haystaan oo ay cuskanayaan qolo waa qoladan khawaarijta oo la dagaalo oo waxayna leeyihiin dastuurkiina dawladdiinuba waa murtado wuxuu dhigayaa in ruuxa diinta uu doono uu haysan karo oo ku dhaqmi karo qodobkaas ay haystaan qolo kale jirto iyaga ka soo horjeeda waa dadka Soomaalida ee asal ahaan islaamka u ah ee gaaloobay ridoobay ruux Soomaali ah asal ahaan waa muslim hadduu diinta ka baxa murtad uu noqon karaa diin kale ma qaadan karo kuwa ridoobayna waxay haystaan iyaguna qodobkana wuxuu noo fasaxayaa in diintii aan qaadano labada qolo dhibkan ugu haysta labadaba qodobkan ay daliishanayaan saa darteed wax baahi ah oo qodobkan loo qabo ma jirto labadiisa faqra midnaba dib waxaan ahayn oo keenay ma jirto waxa ku soo haray dad waxaa jira aan Soomaali ahayn oo ajaaniba oo diimo kala haysan kara
oo waddanka siyaabo kala duwan u degi kara shaqo u imaan kara ku noolaan kara dadkaas ma loo ogol yahay inay diintooda ku cibaadaystaan haa haddii kuwa loola jeedo ha lagu caddeeyo ha la yidhaahdo dadka ajaanibta ah ee Soomaalida aan ahayn ee waddanka ku nool waxay xaq u leeyihiin diintooda inay ku cibaadaystaan ha lagu qoro haddaan la huraynin ha la yidhaahdo ruux kasta oo Soomaali oo Muslim ah waxaa waajib ku ah diintiisa islaamka inuu ku dhaqmo faqrada koowaad laga dhigo faqrada labaadna ruux kasta oo ajnabi ahna oo waddanka si sharci ku joogana wuxuu xaq u leeyahay diintiisa inuu ku cibaadaysto maxaa jira diinta in lagu dhaqmo xaq ma aha waa waajib weeyaane ma xaq ruux hadduu rabana uu iska dayn karo hadduu rabana uu la iman karo ma aha farqigaas u dhaxeeya okay waa intaasaan kaga baxaya marka waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh